soo dhawaada saaxiibayaal meel kastoo aad joogtaan halkan waa channelka dabagalka wararka 29 bisha 10 sanadka 2022 qodobada ugu waaweyn warkeenan waxa kamid ah faafayna qarsoon oo laga helayo heshiis ay gaareen ra'iisul wasaare Xamza iyo madaxweynaha Puntland xoga dheeraad ah oo laga helayo awoodda saddexaad ee dawladda federaalka sida weyn ay ugu adeegsanayso shabaab سعيد عبد الله الدني أو قرشينيا سفر أيسن كوهلين عد كتير سن معمول كيسا مدحونا عجر أو سلم فلان كجهلي ربشتها كذا شيء دلكي حلبان جويريا إياسكري دلك سكدن بيجي أو كهلي أصابت أو جستي أيوه فلاديمير بوتين أو شيء إن أدونك أو جليو طبعا كيسانو أو جهل استبدنا intaasi saaxiibayaal waxay ahaayeen qodobada ugu doorkaroon warka channelka dabagalka wararka aad ku cusubtay channelkan kusoo biro subscribe sar muuqaalka like sar share gare oo la wadaag saaxiibada aad ku maasan tahay inaad ka mid tahay saaxiibada dhawey channelkan haatanna aan idinku wareejiyo waryaheena oo inoo soo gudbinayo wararka si oo faahfaahsan aad baad u mahadsantahay halkan waa channelka dabagalka wararka daawadayaal haatanna waxaanu si aanbaqaadeena qodobada aad maqasheen oo dhameystiran waxay warar kala duwan laga helayaa kulan gaar ah oo dhaxmaray Saciid Cabdullaahi Dani iyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamza Cabdi Barre oo looga hadlay arrimo dhowr ah oo quseeya tabashooyin ka dhex jira labada dhinac labadan mas'uul ayaa qoraal ay kulan ay yeesheen ka soo saareen waxa ay ku sheegeen inay ka wada hadleen arrimaha ammaanka iyo gurmadka abaaraha sida xoguhu sheegayaan waxay kaloo isla soo hadal qaadeen xalinta khilaaf u dhaxeeya labadan mas'uul kaas oo ka dhashay magacaabista ra'iisul wasaaraha iyadoo xilligaas uu Dani rabay qof ka soo jeeda Puntland sidoo kalena khilaafkooda ayaa salka ku ay arrimo kale kulanka Xamza iyo Dani waxa ka qayb galay la taliyaha ra'iisul wasaaraha ee arrimaha dib u heshiisiinta Ali Cabdi Awaare oo ka soo jeeda deegaanada Puntland iyo wasiiru dowlaha madaxtooyada Puntland Cabdi Fitaax Maxamed Cabdi Nuur wararka ayaa intaas ku sii darayay in maalmaha soo socda laga yaabo in ra'iisul wasaare Xamza uu safro deegaanada Puntland iyadoo intii khilaafka uu ka dhex jiray labadan mas'uul loo diidanaa wasiirka koowaad ee dalka inuu safar ku tago Puntland si dabal looma cadeen waxyaabaa lagu qanciyay madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani waxaana qabsoomida kulankan door ku lahaa madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe kulankan ayaana imaanaya xilli uusan wanaagsaneyn xiriirka Saciid Dani iyo ra'iisul wasaare Xamza Tan iyo markii loo magacaabay ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Saciid Cabdullaahi Dani ayaana marar dhowr ah iska diiday in ra'iisul wasaare Xamza uu yimaado caasimada Puntland ee Garowe balse dadaal ay sameeyeen odayaasha dhaqanka iyo siyaasiyiinta beelaha oo ra'iisul wasaaruhu ka soo jeediyo xubno kale ayaa lagu guuleystay isku soo dhawaanshiyaha labada dhinac hogaamiyaha Puntland ayaana ra'iisul wasaare Xamza Cabdi Barre ku eedeeyay ololihii xildhibaanada labada aqal ee ka soo baxay deegaanada Jubbaland ee uga dhaqaaqeen uguna diideen codka Saciid Dani dharaartii doorashadii madaxweynaha ee Avizion ee ka dhacday 15 bishii May ee sanadkan 2022 geesta kalena xogo dheeraada waxa laga helayaa awoodda saddexaad ee dawladda federaalka Soomaaliya sida weyn ugu adeegsanayso dagaalka ka dhanka al-shabaab kacdoonka ka dhanka kooxda al-shabaab iyo go'aanka adag ee madaxweynaha Soomaaliya ee dagaalka socda ayaa marka laga yimaado waxa jira dhinac kale oo si weyn u jabiyay awoodii dagaalka al-shabaab lagula jiray diyaaradaha aan duuliyaal lahayn ee droniska ayaa awoodda saddexaad ee dawladda federaalka Soomaaliya u adeegsanayso dagaalka ka dhanka argagixisada kadib markii madaxweyne Xasan Sheikh iyo dawladiisa ay beesha caalamka ka dalbadeen inay si dhab ah uga qayb qaataan dagaalka socda kadib dalabkaasi waxay diyaaradaha droniska ee dalalka Mareykanka iyo Turkigu bilaabeen duqeymo iyo sahamin joogta kuwaasi oo dhaawacyo waaweyn u geystay awoodii kooxda al-shabaab sidoo kale waxa ay dawladdu sameysay goob laga maamulo duqeymaha ay fulinayaan diyaaradaha droniska iyadoo xilli kasta ee dawladdu ay dalbato duqeyn dhinaca cirka si degdeg ah uga jawaabayaan diyaaradaha aan duuliyaal lahayn diyaaradahan ayaa u saalay ciidamada dawladda iyo kuwa deegaanka inay helaan xogaha al-shabaab gaar ahaan gawaarida qaraxyada wada iyo abaabulka kooxdaasi ayagoo gabi ahaanba hakiyay dagaaladii gaadmada ahaa ee kooxdan ku weerari jireen fariisimaha ciidamada dawladda tan iyo markii ay si toos ah u bilowdeen duqeymaha diyaaradaha aan duuliyaal lahayn ayaa sidoo kale waxaa ku adkaatay al-shabaab inay is aruursadaan oo ay fuliyaan dagaaladii cuslaa oo ay ku qaadi jireen fariisimada ciidamada dawladda iyo kuwa midooda Afrika
si kastaba dadka ku xeel dheer arrimahan ayaa sheegaya in al-shabaab ay ku adag tahay inay sii wadaan dagaalkan haddii ay sii socdaan duqeymahan ay fulinayaan diyaaradahan kuwaas oo toddobaadyadii ugu dambeeyay lagu dilay dagaalyahano badan oo ka tirsan kooxdan islamarkaasna lagu gubay gawaari ay ku diyaarinayeen qaraxyo qeybo badan oo kamid ah gobolada dalka Soomaaliya gaar ahaan gobolada dhexe bartamaha dalka Soomaaliya ayaa si xoogan waxa uga socda kacdoonka dhanaca kooxda al-shabaab kuwaas oo ay guulo waaweyn ka soo yeeyeen ciidanka xooga dalka iyo dadka deegaanka. halka dowladda wadaya nagala socotaan waa janalka dabagalka wararka ee madaxweyne Cagjarna waxa uu si lama filaan ah uga hadlay rabshadaha ka dhashay dilkii xildhibaanad Juweeriya halka askarigii dilkaasi ka dambeeyana uu ka hadlay sababta uu falkaasi u geystay. madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar Cagjar ayaa markii ugu horeysay si faahfaahsan uga hadlay sida ay ugu muuqdaan rabshadihii xigay dilkii xildhibaanad Juweeriya Sucbis loogu geystay garoonka diyaaradaha magaalada Jigjiga. madaxweyne Cagjar oo qoraal dheer ka soo saaray arrintan ayaa waxa uu dibadbaxyadan ee dadku dareenkooda ku cabirayaan ku tilmaamay wax lagu diirsado. sidoo kale wuxuu sheegay in dibadbaxyadan ka turjumayaan soo noolaanshiyaha damiirka shacabka deegaanka isagoona dhinaca kale dadka isku soo baxay ku dhaliila qaabka ay u wajahayaan arrintan iyo sida uga falceliyeen. qoraalkan oo dhinacyo badan taabanaya ayuu ugu horey Mustafa Cagjar sidoo kale ku yiri waxa uu wax lagu diirsado soo noolaanshiyaha damiirka shacabka deegaanka oo maanta maraya in uu ka dhidhiyo dhacdo walba oo uu arko inay tahay gardaro. waa himilooyinkii halgankii dheeraa ee lagu jiray in dadku ka baxaan dulmi iyo duleys mana dhibsanayo wixii dareen iyo dardaaran ah ama cadaalad loogu raadinayo cid dulman ama lagaga falcelinayo xadgudub lagula kaco muwaadin shacabkeena kamid ah. sidaas oo ay tahay waxaa mar walba haboon inaan isxasuusino in rabitaanka shacabka oo aan jihisnayn ama dareen eena taab iyo xeelad la socon una meelna ina gaarsiinaynin waxaa caqabadaha soo jireenka iyo kuwa taaganba lagaga bixi karaa faham fiican muwaafaqo iyo samir ayuu yiri madaxweyne Mustafa Cagjar. sidoo kale madaxweynaha qoraalkiisa ayuu ku yiri dhacdadii ee dilka xildhibaan Juweeriya sida looga falceliyo waxa ay markhaati ka tahay isbedelka ka dhacay deegaanka iyo soo noolaanshiyaha damiirka muwaadiniinta shacabku sida ay ugu xun yihiin gardarada cod dheer iyo mid hooseba uu ku gudbiyay dareenkiisa eeladii qaraabadii dhib ku gaadhay waa loo tacsiyay gacan ku dhiiglay gacanta sharciga ayuu ku jiraa inta dhaawacantana waa lala dadaalayaa wixii dhiman ee ah in cadaalad ay hesho marxuumadan sidii loo ballan qaaday ayaana loo yahay ayuu yiri. intaa marka laga tago dooda gacmo daalis ama lugooyo ah in dadka lagu weerariyo ma ahan kow hay-adaha federaalka hanaga baxaan waxaa ka haboon hay-adaha federaalka aan galno oo aan waxaan ku yeelano hay-adaha ammaanka ee dalka aan jaar ka nahnay ee Kenya maanta cidda ugu sareysa ee xukunta waynu wada ognahay wasiirka gaashaandhigga iyo taliyaha booliskaba. labo dambi uu galo shakhsi dambiile ahi maati aan waxba galabsan oo aan ugu leyno waxaa ka haboon dambiilaha sharciga la marsiiyo. saddex meherado aan jajabino iyo caasimadeena aan gubno waxaa ka haboon nidaamka iyo kala dambeynta inagoo ilaalina aan xaqeena iyo xuquuqdeena raadsano. dhagax la tuuro iyo dukaano la gubo kuma xoroobeen ayuu ku yiri qoraalkiisa ugu dambeyn madaxweyne Mustafa Cagjar. dhinaca kale warbaahinta maxalliga Itoobiya iyo kuwa Soomaalida oo maalmihii la soo dhaafay si weyn uga hadlayeen dilkii garoonka diyaaradaha ee magaalada Jigjiga talaadadii loogu geystay Juweeriya Sucbis oo ka tirsaneyd baarlamaanka dowladda deegaanka Soomaalida ayaa keentay in arrinkan uu ka hadlo sababtii ka dambeysay askarigii dilka geystay. sheekadan ayaa waji kale yeelatay markii uu askariga lagu eedeynayay dilka Juweeriya isaga qudhiisa qirtay in uu si ula kac ah u toogtay marxuumadda sida uu warbaahintu u sheegay ku-xigeenka hoggaanka nabadgelyada deegaanka Soomaalida Maxamed Axmed Gurey. warar dheeraada ayaana ka soo baxaya dhacdadaas oo sababtay mudaharaadyo ay sameeyeen qaar ka mid ah dadka deegaanka oo dalbanayay inay cadaalad helaan qoyska Juweeriya oo ahayd hooyo 26 jir ahayd oo ka tagtay 2 caruura. wacda dambi baaristu waxa ay sheegaysaa in ninkan isagu dilka geysta uu qirtay inuu falkaasi u geystay si ula kaca. Maxamed Gurey oo warbaahinta la hadlayay ayaa u sheegay in ninkan dambiga ka hor qirtay maxkamadda 26 bishan oo ahayd maalintii ku xigtay maalintii uu dhacay dilka. si kastaba ma jirto ila wareedyo kale oo madax bannaan oo arrinkan xaqiijiyay iyadoo aysan warbaahintu goobjoog u ahayn dhageysiga dacwadda waxaana ilgaara lagu hayaa xukunka maxkamaddu ka ridi doonto falkaasi.
dhanka kalena Saciid Dani waxa uu qorsheenayaa safar aysan cidna ku weelin inuu galo. Madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa toddobaadkan bilaabanaya qorsheynaya inuu safar ku tago magaalada Nairobi ee xarunta wadanka Kenya. xogaa uu helayo dabagalka wararka ayaana tilmaamaya in safarka madaxweyne Dani ee magaalada Nairobi aysan ku weelin doonin cid ka tirsan maamulka Puntland. xogaa ayaana tilmaamaya in Saciid Dani uu sidoo kale u sii gudbi doono dalka Imaaraadka Carabta. Master Dani ayaa inta badan safarada dibadda ka ilaaliyay inay raacaan mas'uuliyiinta maamulkiisa si aanan loo helin xogta safarkiisa la xiriirta. waa hagaagay daawadayaal iminkana waxaanu eegaynaa Putin waxa uu sheegay in adduunku uu galayo 10 sano ee ugu halista badnaa. adduunka ayaa wajahaya sida xal u eg yahay 10 sano ee ugu halista badnaa tan iyo dhamaadkii dagaalkii labaad ee adduunka sida uu ka digayba madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin. khudbad dhinacyo badan taabanaysa ee uu jeediyay Putin ayuu ku doonayay in uu qiil ugu sameeyo duulaanka Ruushku ee Ukraine, tallaabadaas oo dalkiisa ka dhigtay mid uu ku galo xaalad go'doon oo caalami ah. Master Putin ayaana sidoo kale ku eedeeyay reer galbeedku inay isku dayayaan in ay ku baaqaan maalmahan hubka nuclear-ka, taas oo ay isku dayayaan si ay uga qabsadaan xulafada Ruushka in ay dhabarka u jeediyaan Moscow, ayuu sheegay. dhowaan ayay ahayd markii wadamada reer galbeedku ay dhaleeceeyeen hanjabaadyaha nuclear-ka ee Ruushku bixinayay. horaantii toddobaadkan isbahaysiga militariga NATO ayaa cambaareeyay sheegashada aan la hubin ee Ruushka in Ukraine ay isticmaali karto bam sun ah, kaas oo walxiisa loo soo raaciyay shuuca halista ah oo ay saameyntiisu wadato. xogayaha guud ee gaashaanbuurta NATO ayaana sheegay in xubnaha isbahaysigu ay iska fogeeyeen eedeymahaasi xilli ay dhankooda ku doodeen in Ruushku isku dayayo abuuridda marmarsiyo uu ku sii xumeeyo xaaladda dagaalka. madaxweynaha Putin ayaana ka hadlay fagaaraha sanadlaha kadib guuldarooyinkii isdabajooga ah oo militarigiisa dhowaan ka gaaray dalka Ukraine, halka dhanka kalena caarada shacabku ka qabaan doonistiisii ku aadaneed qoridda askar cusub oo gaarsiisan ilaa 300 oo kun ay sii baahisay. maalin ka hor khudbadiisa Moscow waxa uu si u muuqatay dhoolatus u soo kormeeray goobaha nuclear-ka. weligii si hordhac ugama aanan hadlin wax ku saabsan suurtagalnimada isticmaalka Ruushka ee hubka nuclear-ka. waxaan kaliya kaga jawaabay tilmaamo kooban faalooyinka ay ka dhawaajinayaan hogaamiyaasha dalalka reer galbeedka, ayuu u sheegay dhageystayaashiisa. madaxweyne Putin waxa uu si gaar ah farta ugu fiiqay ra'iisul wasaaraha UK Liz Truss oo soo jeedisay intii lagu guda jiray ololihii Agoosto ee ugu dambeysay hogaaminta UK inay diyaar u tahay inay riixdo badhanka nuclear-ka haddii duruuftu ku khasabto inay sidaasi sameyso. waxa uu sheegay in uu la yaabay in xulafada UK aysan ka dhiidhinaynin hadalkaasi. maxaa la rabay in aan sameyno? ma inaan iska aamusnaa ama iska dhigno sidii kuwa aan maqal, ayuu yiri madaxweyne Putin. si kastaba ahaatee waxa uu qudhiisu marar badan ka digay in Ruushku isticmaali doono dhammaan hababka la heli karo si uu isku ilaaliyo, taas oo loo arkayay khatar cad oo tilmaamaysa suurtagalnimada in Ruushku lafahantiisa isticmaali karo nuclear. Putin ayaana mar kale ku celiyay weeraradiisii ku aadanaa wadamada reer galbeedka, isagoona markaan sheegay in halis dhiig badan daadinaysa iyo laguma ciyaaraan ay tahay in dal kale la dafiro madax banaanida dhulkiisa iyo walxaha u gaarka ah, isagoona intaasi sii raaciyay in isballaarintiisii gaarka ahayd ee reer galbeedku ku haysatay karimaha adduunku ay hadda sii dhammaanayso. reer galbeedku mar dambe ma awoodaan inayna hagaan, laakiin waxa ay si quusa isku dayayeen in ay sidaasi sameeyaan, ayuu yiri madaxweynaha wadanka Ruushka Vladimir Putin. guud ahaan daawadayaal wanaagta warkii oo aad kala socoteen janalka dabagalka wararka. fadlan daawada qayb ka noqdo saaxiibada ku xiran janalkan. aragtidiina halkaas noogu reeba muuqaalka u sii share gareeya asxaabtiina laagtiina waa inoo dhiirigelin. tan iyo warkan kan xiga intaanu dib ugu kulmi doono waxaan idin leenahay nabadgelyo.